السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada dhammaan khiyaarta ku xiran channelkan X Pro Option Somali. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wada caafimaad qabtaan. Soo dhawaada dhamaantiin. Halkan waxaan kaga hadli doonaa iclaamkeena ku saabsanaa investmentiga oo ay ka harsan tahay bari oo kaliya. Insha Allah waxaan rajeynayaa dhalinyartu intooda badan inay isdiiwaan galiyeen. Waxaan rajeynayaa in aan videogan aan duubi doono inuu ahaado update ka hadli doona maadaama oo dadka badankooda su'aalo iyo wax iga weydiinayaan. Waxaan rajeynayaa qof kastaaba isagoo videogan soo daawaday oo investmentiga waxa uu yahay fahansan inuu insha Allah markaa WhatsApp iga soo qaban doono. Haddii la haydmo investmentiga two phase weeyaan, waana laba phase. Phase-ka koowaad waa $50 oo qofku wax uu sugayaa muddo bila. Phase-ka labaadna waa $100 oo qofku wax uu sugayaa muddo 15 casha. Phase-ka koowaad ee $50 ee muddada qofku uu sugayo bisha wuxuu qaadanayaa $150. Phase-ka labaad ee 15 casha qofku waxa uu qaadanayaa waxa loo yaqaano $150. Waxaan rajeynayaa inaad middaa fahanteen. Qofku haddii mar labaad ku celiyo, qofka phase-ka koowaad ee $50 dhiganaya muddo bila waxa uu ku qaadanayaa waxa loo yaqaano $50. Qofka muddada 15 casha sugaya waxa uu dhiganayaa $100 oo investmentiga waxa uuna qaadanayaa bisha oo 15 oo markaas 15 cash uu sugayay $150. Marka hadda waxaa jirta su'aal dhalinyartu ka timid meesha oo ahayd haddaba ustaad qofka $100 dhigta muddada 15 casha uu qaadanayo ma wuxuu qaadanayaa boqolkiisii oo 50 loogu daray mise wuxuu qaadanayaa 150 aan boqolkiisa ku jirin? Horta su'aashaas waa su'aal aad iyo aad muhiima oo fiican inuu qof walba ogaado. Su'aasha ah ustaad ma lacagtaadii baa 50 lagu saarayaa mise 150 aan lacagtaadii ku jirin baa lagu siinayaa oo lacagtaada meesha ku oolaysaa? Horta waa su'aal muhiima oo fiican in la isweydiiyo. Okay, 15 bisha marka la rabo inaad $150 qaadato waa boqolka aad dhigatay oo $50 oo faa'iido ay ku fuushay. Aan mar labaad kugu celiyo, haddaad $100 dhigato waxaad qaadanaysaa boqolkaagii dollar oo $50 lagu saaray 15 bisha. Haddaad $50 dhigatay 30 bisha waxaad qaadanaysaa 50kaagii oo $100 lagu saaray. Waxaan rajeynayaa midda inaad fahanteen. Okay, haddaba waddo kale kuu furan. Waddada kuu furan waxay tahay inaad boqolka meesha u deysato aad 50ka faa'iidada qaadato. Haddaad tahay qof $100 bixiyay 15 bisha, saad 15ka dambana ama 150ka u wada qaadato ama intaad 50ka haddana mar labaad qaadato aad boqolka u sii dhigato faa'iido kale. Haddii aad tahay qofka bixiya $50 30 bisha marka ay dhammaato waad awoodi kartaa inaad 50ka ka tagto boqolkana qaadato. waadna awoodi kartaa inaad taad boqolka dhigato 50ka qaadato boqolkana 15 bisha haddana aad ku qaadato $50. boqolkaasna oo meesha ku sii yaala ama 15 bisha aad $150 isku wada qaadato. Waxaan rajeynayaa midda inaad fahanteen. Fadlan haddaadan fahmin anigu 2 jeer baan kugu celiyay videoga ku cesho halkaas si fiican iskaga fiiri. Waxaan rajeynayaa midda inaad fahanteen. Su'aalihiinu WhatsApp-ka aad bay ugu bateen waxaana moodaa su'aalaha inay isku wada mid yihiin. Marka waxaan rajeynayaa su'aashani inay iga kaafinayso su'aalihii isku midka ahaa ee la weydiinayay. Insha Allah waxaan rajeynayaa midda inaad fahanteen. Qofka $50 dhigtay danta standardka ku soo celiyo waxa uu qaadanayaa muddo 30 casha $150. Qofka $100 dhigtayna waxa uu muddo 15 casha qaadanayaa $150. $150kaas waa boqolkii uu dhigtay iyo 50 loo saaray. Kan $150ka qaadanaya 30 bishana waa 50 uu dhigtay oo 100 loo saaray. Waxaan rajeynayaa midda inaad fahanteen. weli wuu socdaa isdiiwaangelintu. Waxaan rajeynayaa inaad isdiiwaangelin doontaan intiina cusub ee rabta inay iga weydiiso WhatsApp-ka su'aalo intan oo kale aan ku soo maray. Fadlan waxaan rajeynayaa inaad videogan daawato dhammaysato kadibna markaa adoo wax walba ka dhergsan inaad isdiiwaangelinta caadi registration-kaaga u qaadan doonto. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا هذا الشركة عشان سبسكرايب لايك and share and comment. لامبرك واتساب كي لسه من قريب وانا إن شاء الله description قاعد نكون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.